ها وشركة بلمها هذا هو سنتين وحنا هاي بكان وحنا ربا نمبر دكتور أبو بكر حاجي dhiraandhirinta aragtiyada iyo hindisayaasha ganacsi waa mid ku qotanta hadba sida looga fakaro. Ballamaha waa shirkad isbitaalada uga qabata dadka ballamaha ay ku helayaan nambarada dhaqaatiirta lagula kulmo. Sidaas oo awal ahaan jirtay caqabad xoogan oo dadku la kulmi jireen. Dad badan oo xanuunsan ay guri jiif u noqdeen iyagoo gaari waayay isbitaalada. Agaasimaha shirkadda ballamaha Cabdinuur Cabduqaadir ayaa sheegay muhiimad gaar ah bulshada ugu fadhiso. Hal abuurka cusub ay keeneen isagoo aaminsan ballamaha aragtidii lagu dhisay inay ahayd mid loo baahnaa. runtii waxay aragtida nagu dhalatay muddo hore laakiin waxa aan bilownay oo aan shaqo bilownay bishii 9aad September 2018 laakiin muddo sanad ku dhow waxaan wadnay daraasaadkii iyo qabanqaabadii hawshan cilmi baaris aan ku sameynay taasoo ugu gobol xarkeedu wahay sida aan markaan aragnay baahida dadka ay u qabaan isbitaalada loo dheelmanayo wax walba isbitaalada la aadayo saf dheer loo galayo dhakhtarkii uu imaanayo xilli 2 saac dadkii ay saf dheer ku jiraan baahidaas iyo waqtigaas aadka u fara badan oo qofka bukaanka meesha joogo markaan dareensanay kadib ay nagu dhalatay inaan shirkaddan soo bandhigno dadka ku mashquulsan shaqooyinka aan joogsiga lahayn ee ku gadaama noloshooda ayaa u arka aragtida cusub ee ballamaha mid dabooli karta waqti badan oo uga bixi lahaa inay aadaan isbitaalada waxaana haatan nambarada loo goostay isbitaalada ay noqdeen kuwa ku diyaarsan haddii aad ballan leedahay kale isbitaal oo kale u baahan tahay waqtigaaga kalena waxa waaye ina hiirada baxdid oo kale to aas lambar soo goosatid oo kale waqtiyaas ku baaqan kartaa ina just ina wacdi lambarkooda aad waxa u baahanaa dhakhtarkaas qaybtaas uga baahanaa lambarkaasna hal ii jaro adigoo dan bixin subaxna shaqada iska soo aaday kadib lambarka markay kugu jaraan qofka waalidka ah ama walaalka ah ama cunugaaga ah inaad aad lambarka u reedo lagu jaro meesha iska qaado tagna marka intaas waxaa soo koobmaya waqtiga adoo shaqadaada joogo kaleeto horta marka hore waxaan raadinayay qof lambar ii jaro kadibna waxaan saaxiibadii weydiiyay kadibna waxay ii sheegeen shirkadda ballamaha lambarkooda 24 sidaas ku wacay kadibna lambar ii jaray horumarka xawliga ee ka jira caalamka waxaa si fudud ula jaan qaadaya Soomaaliya oo muddo badan dagaal ka jiray ka soo kabanaysa maalinta ka dambaysa waxaa soo ifbaxaya hal abuuro kala duwan adeegga labaad waxa waaye inaan fiisa caafimaad haddii bukaanka dalka wax looga qaban waaye aan u soo saarno fiisa caafimaad ee dalalka Turkiga isbitaalada ku yaal aan xiriir shirkadda ay la leedahay India oo ayadana fiisa caafimaad aan ka soo saarno isbitaaladeeda India ku yaal shirkadda xiriir la leedahay Bangladesh oo sidoo kale ayadana isbitaalada xiriir aan la leenahay ilaa dhowrkaas wadan waxaan u soo saarnaa dadka bukaanada dalka wax looga qaban waaye fiisooyin caafimaad shirkadda ballamaha labadaas adeegay qabataa ardaydu waxay fursad u arkaan balan looga qabtay isbitaalada Muqdisho kii ay doonaan iyagoo u maraya ballamaha maadaama waqtigooda ugu badan ay ku bixiyaan waxbarashadooda shirkadda ballamaha waxa ka soo dalbado maanta inay lambar ii qabtaan si ay isbitaalka Arrow iga caawiyaan isbitaalka u baahna waa dhakhtarka maqaarka Bashkuleeti Biritola ayaa rabaa inay isbitaalkaas aasto xilli horena inay ii qabtaan u baahanahay saa waxbarashadeeda ugu daahin magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku yaala isbitaalo fara badan kuwaas oo cidii u baahatay si sahlan aysan ku heli karin nambarada caafimaad ee bukaanada baahidaasi waxaa ka dhashay hal abuurayaasha Soomaaliyeed hadba hindisahooda ay ku saleeyaan waxa loo baahan yahay muddadii aan qabanay aan tusaale ka bixiyo waxa kamid ah isbitaalada dhammaan horta ku yaala gobolka Banaadir gaar ahaan magaalada Muqdisho haddii ahaan la isbitaalkan Digfaar hadduu ahaan lahay Somali Sudanese hadduu ahaan lahay isbitaal Kalkaal hadduu ahaan lahay Shaafi Al Jazeera isbitaalka la yiraahdo hadduu ahaan lahay haddii Yardimeel oo kamid ahaan lahay dhakhtarka oo indhaha Cali Baashi oo kale dhakhtarka oo maqaarka oo kale oo ninka la yiraahdo Bashkuleeti oo kale isbitaalka caruurta isbitaalka la yiraahdo Macaani oo kale dhakhtarkan Macaani Dr. Kuulo kale oo saakidan ugu dambeeysan dhowr macaamil u jarnay kobaca garaadka ee jiilka waxbartay ayaa u muuqda mid la saan haysta aragtida ku dhisan wax horumarinta ee dunida ka jira kuwaas oo dalal badan oo adeegsaday fikrada ugub ah ay noqdeen kuwa ku guuleysay horumarinta dalkooda waxa socday kobaca dhanka fikirka ah oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku tartamayaan dhanka ganacsiga iyo inay keenaan hal abuuro ku cusub magaalada Muqdisho ballamaha sida aragtaan magaceedana aad ka aragtaan ballamaha waxay ka mid tahay shirkadaha dhawaan ka abuurmay gudaha Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ballamaha waxay sameynayaan inay ku gooyaan waxaad uga baahan tahay dhaqaatiirta magaalada Muqdisho iyagoo kula kulansiinaya dhakhtarka u baahan tahay waxaana dad badan oo guryahooda joogo oo awood u heli waayay ay awoodaan inay soo wacaan shirkaddan kadibna ay helaan
kaar ay ku tagaan isbitaalka u baahan yihiin sidaasna waxaa ku fududaatay dad badan oo shaqo waqtigooda ku bixiyo inay helaan jaanis fiican oo ay ku tagi karaan isbitaalka u baahan yihiin maxamed ciise koona goobjoog muqdisho